madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaal ku soo maray gobolada Salel, Awdal iyo Gabiley isagoo isla markaasina ku soo noqday caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. madaxweyne waxa salaantaada u diyaara cutub ka tirsan taliska saldhigga koobaad ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku soo dhawaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanka Geerisa shacbiga halka ku dhaqan uma ay kala hadhin soo dhaweynta wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliland ee jiidahooda socdaalka shaqo ku maraya odayaasha dhalinyarada aqoon-yahanka deegaanka Geerisa ee gobolka Awdal barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer Faraton ayaa la hadlay bulshada ku dhaqan Geerisa ee iskugu soo baxay soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne waxaan qoomay maanta madaxweynihii gobolka maanta Geerisa soo maray ee halka noogu yimid roobna ma tuu noo daaya alxamdulillah wali madaxweyne noogu yimaada halkan oo ka horeeyay madaxweynaha Soomaaliland waxa weeye madaxweynihii wadaninimada muujiyay madaxweynayaasha ka qiimo badnaa Geerisa oo ka tirsan degmada Luqaya كل شيء قرن كتير أو مشاريع رمضان يا لقيه جريء. إذا كسر حد الله وجيه هو أول مواد ستين. ده سيف بلابا. أنا أقول كان مشيكا يوحكرنا. مركز الكلية يوم ما كنا نطلعنا. أنا هو شنو قلت زي تصلنا. هذه أدري بقادر يا روتي. يمكن نساوي لستين. إلا بس بتعالى ديكو. وكايزة يا سوي ستين. يعني ما هو حنشوف كذي. ومركز madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay taariikhda iyo kaalinta weyn ee deegaanka Geerisa uu ku leeyahay yagleelka nabadda guud ee qaranka Soomaaliland. ماشي هو ماشي وكل شيء حسب بلا تدور اسلام مركز بعد بيدور كل شيء واسلام كده وسوي ويا هذا جالسكني جد يلا شوف الرجال ده شوف الرجال كده وسوي الرجال يا دكتور الدولة ده بس بيسي الدولة تشوفون ورا الرجال كله يسوي الرجال وحفظ الله يا عالم وحفظ الله أنا بروح أبص يوم دور مدرسة وحنطر كويس بعيد فريق وين ما وصل وصلنا للوادي بعد حمتنا وحاولوا هاي بلا قادر ونمتن بمعنى العلو ويسوي بلا قادر كل يجي سيرة إلى الحين قتالية وخشية من هذا والله يحوك سواء سوى بلا قادر madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo safarkiisa sii wata ayaa deegaanka Fardalogo xidh ee gobolka Awdal si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanka bulshada ku dhaqan caleemo qoyan boodhar uu ku xardhay sawirka madaxweynaha Soomaaliland iyo halku dhigay lagu taageerayo siyaasadda hogaamineed ee madaxweynaha ay shacabka ku dhaqan Fardalogo xidh madaxweynaha ku qaabileen waxaanay ku bogaadiyeen qorshaha xukuumaddiisa magaca Soomaaliland magaca dadka Fardalogo xidh iyo nawaaxigeeda aad ayaan ku salaamayaa ku faraxsanahay madaxweyne dad badan waxay sheegayeen inay ku faraxsan yihiin maanta nibaanka ka maamaayo laha anaga waxa noo sharaf madaxweynihii ugu horeeyay ee noo yimaada intaas horta waxa ugu weyn oo ah oo awal waxa ka arki jireen sawirka gidaarka ku yaala iyo TV-nikii haysta maanta samaroma kuma jiro in ay ku arkeen oo ku faanayaan halkaan ay joogno ilaa garbadii jab iyo garbadii iyo ilaa xalay laga shaqeynayo carabka soo biglaynayo geedaha loo wada saaran yahay aad iyo aad geedu ay leeyihiin muuse madaxweyne ku leeyihiin mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa la dardaarmay bulshada ku dhaqan deegaanka Fardalogo xidh dadaalka aadantiina ugu seedseen beerihii xoolihii kii dukaan lahaa gabadhii maqaaxiishiisa aad
inaad ixtiraamtaan oo soo dhaweysaan aad dadaalka u gashay waa ku mahadsantihiin walaaltinimo iyo kalgacal iyo soomaalinimo noo qaadanaynaa waa fariin qaran oo u gudbinaysaan Somaliland bari iyo galbeed si ay isu jeceshahay si ay isu ixtiraamayso si ay isu masigeliso taa waa idinka mahadnaqaynaa ilaahayna warkumaana deegaanka qurux badan joogtaan deegaanada kale ee madaxweynaha Somaliland socdaalka ku soo maray ee gobolkan Awdal waxaa ka mid ah deegaanka Xalixayd oo dadka ku dhaqan si miyiga madaxtinimada ay u soo dhaweeyeen waqtiga madaxweynaha Somaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadallo iskugu jira waano iyo dardaaran u jeediyay bulshada soo dhaweyntiisa iskugu soo baxday ee ku dhaqan deegaanka Xalixayd Xalixayd haddii iskuul loo dhiso haddii waddo loo dhiso haddii rin loo keeno أهلا وسهلا واحد وخمسين كانوا ولا عندي نوكة تام بهالسنة هبل باك يعني على حيل بالك بيصير على حيل بالك على حيل ودم باجريسة ريا على حيل سكول قري ودريه عافمات قري ودريه وضع قري ودريه لين قري ودريه عندي كانت هواك معصمتها لكن حجر يا حجر ما madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo u kurgalay xaaladda dad iyo duunyo ee bulshada ku dhaqan gobolada Somaliland qaar kamid ah ayaa safar ku tagay deegaanka degmada Garbadadar waxaana lagu qaabilay caleemo qoyan iyo erayo lagu taageeray madaxweynaha Somaliland salaadiin aqoonyahan madax dhaqameed dhalinyaro gudoomiyaha gobolka Salel wasiirada wasaaradaha caafimaadka Umar Ali Cabdilaahi gaashaandhiga Cabdiqani Maxamuud Caateye Fariid ayaa iska daba maray muhiimadda ay deegaankan u leedahay iskaashiga iyo horumarka bulshada. Isbitaalkaas waa isbitaal ay dhisteen dadka ku dhaqan degmada ay joogno ee Garbadada. Xukuumad ahaan dhagaxaan u dhigay maantana waxaa dhex yaalla qalab ilaa $80 oo lagu bixiyay miisaaniyadda qaranka iyo cashuurta muwaadiniintu ay bixiyaan. waxa kale oo laga go'aana in sanadkan cusub dhaqaatiirtii iyo neersiskii iyo agabkii u baahnaa oo dhan la keeno oo lagaga baarsado in dad muxuu qof bukaan la geeyo deegaanka ku fog halkan waxaan xamariyeenaynaa madaxweynaha dowladda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku soo dhaweeyay dalkiisii oo ka yimid dalka Aljaarka nahay ee walaalaha nahay ee Djibouti oo uu ka soo qabtay xiriir wanaagsan oo hore u jiray soo la arkeeyay kuwa in kala taaban karana waxaa ka mid ah in wadadii looyacada ee gawaaridu aan iskaga gudbi jirin looyacada joogi jiray uu maanta madaxweynaha loo soo dhaweeyay oo dhammaantiin degmada Garbadada dhammaan xeebaha galbeedka Somaliland saameyn badan ku lahayd oo dhammaantiin madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadceliyay bulshada ku dhaqan deegaanka Garbadada ee sida nafurka ah qaranka Somaliland kaalin muuqato kaga jira Garbadada waxa la baahdanayaa soo dhaweynta aan kala galahay ee kalgacalka iyo samaanta iyo walaaltinimada muuqatay u soo dhaweysay aniga waxaan waan ka baahdanayaa baad balaaran oo ka shaqeeya ka baahdanayaa Somaliland wada caalamka u dhiso oo baanka dhulka laga soo gaadhay wada wadaagaysiina ilaa teena waxaan ugu qaranay in la ka soo baxdo oo goor ma tagto madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo sii wata safarka dhinaca dhulka ah ee uu ku gaala bixinayay deegaano ku yaala gobolada kala duwan ee dalka khaasatan kuwa galbeedka ayaa soo gaaray deegaanka Ceelgaal oo ka tirsan gobolka Salel waxaana qaabilay shacbiga jiidaha ku dhaqan aqoonyahan odayaal deegaanka ka soo jeeday madaxweynaha safarkiisan ku tilmaamay mid taariikhdu ay xusi doonto oo wax badan ku soo kordhinaya deegaankooda Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland ayaa hadal kooban u jeediyay bulshada ku dhaqan deegaanka Ceelgaal reer Ceelgaal waa bariga hore diyaar garowdeen oo xalay soo jeeday waxa bad anaga naga siyaabiyay odayaal waa weyn oo garacasa oo isla rogaayay jawaab caafimaad dadka dheertiin odayaasha da'daasi dadka kale way tukubaanay odayaasha Ceelgaal way isla rogayaan wulwulada goynayaanba taasina waa cajiib waayo kuwa kale waa tukuya
aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa waan soo dhaweynaynaa walaalkii jira ahaada qodobadaad ka hadashay MCH-ka waa la dhisayaa wasiirka caafimaadka ayla socda haddii alla idhaa horu ka bilaabi doona madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaal ku tagay deegaanka Cadda iyo Agabar oo ka tirsan gobolka Gabiley waxaana ku qaabilay shacbiga jidaha ku dhaqan gudoomiyaha gobolka Gabiley iyo aqoonyahanka deegaanka ayaa u mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliland shacbigan reer Agabar ee gobolka Gabiley waxay ilaa iyo 12 saaka waxay taagnaayeen halka dhammaan ilaa Cadda ilaa iyo Agabar shacbiga gobolka Gabiley ee reer Agabar waxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland yiraahdeen naga gaarsii salaan qaaliya sidii waxa ka daacada oo ay ka tahay hagar la'aan sidii ay u taagnaayeen ilaa iyo 12 subaxnimo cadceeda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadal qoto dheer u jeediyay bulshada iskugu soo baxday soo dhaweyntiisa ee ku dhaqan deegaanka Agabar ee gobolka Gabiley halka waxaan u baahanahay inaynu aad iyo aad maskaxdeena uga bedelo in qalbiga laga midoobo inaynu hal abuur keeno dawladdu dadka ma wada shaqaaleyn karto 7 kuma jaamacad soo saaraan maalin walba soo saaraan magaalo wala jaamacad furtay cilmiga baynu badnay ma sha Allah carruurta waa badatay dadkii dagaalkii ku dhintay iyo halgankii Ilaahay waa inoo caawil celiyay laakiin waxaan u baahanahay dadkan aynu jaamacadaha galna yaryar inaynu u fikirro oo wax dhul haddii qoladii hore dagaalkii dalka la soo la dhiciyo iyo nabadii iyo waxoogay in dawladda dhisa inta haddii lagu daalay qoladii gabowday dhalinyaro waxaa ka rabaa hal abuurkii ahaa da'deena maanta joogto wax ka fikirtaa samee software samee waxa wax ku qabato marka waxaan u baahanahay service shaqo abuura dadkeenu lacag bahaya tujaar badan baynu leenahay markaynu hal abuurkeena lacagta dalka iyaga bixinaya ana hubata haday aqoonyahanka iyo jaamacadu ii keenan hal abuur qoladan kale lacagta laba ana oran waa tan hal maal galiyo waana galneena waxay doonayaan fikradda ay aamin lahaayeen